kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada warbaahinteena Minsom iyo barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo ay noo soo diyaarisay Khadra Guray anigoo Maxamed Muuse ayaan idin socodsiin doona barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo aan toddobaad kasta idinku soo gudbino horumarka iyo waxyaalaha arrimaha bulshada ee ka dhaca dhulka Soomaalida toddobaadkana waxaan ku eegi doonaa horumarka wax soo saarka dhaqaalaha ee maamulka magaalada Goday ee deegaanka Soomaalida magaalada Goday ee deegaanka Soomaalida waxaa sanadihii u dambeeyay ka socday horumarada taaban karo oo ay dowladda deegaanka iyo dowladda dhexe ay fulinayeen magaalada Goday waxa ay ka mid tahay deegaanada ugu muhiimsan ee beeraha iyo dhaqaalaha ee deegaanka Soomaalida taasoo ay ugu wacan tahay biyaha la isku halayn karo ee halkaas ka jira iyo balaarinta hindisaha horumarneed ee deegaanku leeyahay nidaamka waraabka xooggan wax soo saarka dalagga iyo dhaqaalaha ka ganacsiga xoolaha nool ayaa magaalada ka dhigaya mid muhiim u ah deegaanada ku dhow oo aad ugu tiirsan sahayda cuntada dibadda laga keeno beeraleydu waxa ay beeraan galleyda haruurka sisinta miraha iyo khudaarta taasoo si weyn uga qayb qaadata sugnaanta cuntada ee gobolka webiga Shabeelle ayaa halbowle u ah nolosha deegaanka Goday la'aantii biyaha webigana dadka deegaanku ma helaan cunto cusub oo xasiloon waxaana ay Goday door weyn ka qaadataa quudinta deegaanada ku dhow amase ku xeeraysan marka laga soo tago beeraha Goday waxa kale oo ay u xuubsiibatay xudun ay u noqotay horumarinta dhaqaalaha istiraatiijiga ah iyadoo ay ku soo qulqulayaan mashaariic maalgashi oo cusub oo loogu talagalay in lagu bedelo muuqaalka dhaqaalaha ee magaalada isku xirka wadooyinka oo la hagaajiyay dhaqaalaha ganacsiga si kordhaya iyo tayeynta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa xoojisay doorka Goday oo ah marin ganacsiyeed badeecadaha si kala goosha bartamaha Ethiopia iyo deegaanada Soomaalida ee ay dariska yihiin ee Soomaaliya inkastoo ay cimiladu sii xumaanayso guud ahaan Geeska Afrika awoodda Goday ee joogteynta beeraha la isku halayn karo oo ay barbar soo balaarinta fursadaha dhaqaale ayaa noqonaysa mid muhiim u ah gobolka Soomaalida taas oo keeni karta xasiloonida cuntada dalka oo dhan iyo ganacsiga xuduudaha isaga gudba Goday waxa ku yaala webiga Shabeelle waxaana ay ku taallaa gobolka ay ku jiraan xaalado adag oo abaara soo noqnoqda ah webiga Shabeelle waa mid ka mid ah webiyada yaryar ee mara dhulka Soomaalida taas oo Goday ka dhigaysa dhul la beerto sanadka oo dhan magaalada Goday ee deegaanka Soomaalida waxa sanadihii u dambeeyay ka socday horumar la taaban karo mashaariicaha ugu weyn ee ay fuliyeen dowladda dhexe waxa ka mid ah dowladda deegaanku ee sanadkan laga hirgeliyay deegaankaasi xarunta bacriminta walaxda uriya ee Goday iyo mashaariic kale oo badan magaalada ayaana waagii hore waxa lagu yaqaanay khayraadka beeraha haddase waxa ay ku socotaa inay noqoto xarun ka mid ah xarumaha wax soo saarka bacriminta beeraha ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika bishii Oktoobar ee sanadka 2025 ayaa kooxda Dangote oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn warshadaha Afrika ay iskaashi la gashay hay'adda maalgashiga Ethiopia ee magaceeda la soo gaabiyo EIH si ay isaga kaashadaan dhismaha warshad bacrimin oo loo isticmaalo bacriminta beeraha maalgashiga warshadda oo la sheegay inay ku kacayso lacag dhan 2.5 bilyan oo dollar ayaa kooxda Dangote ay yeelanaysaa 60% halka maalgashiga Ethiopia ee hay'adda EIH ay ka helayso 40% marka la dhameeyo dhismaha warshadan baaxadda leh waxa ay soo saari doontaa sanad walba 3 milyan oo metric ton oo ah walaxda uriya taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn adduunka ee soo saara walaxda uriya mashruucu wuxuu ku tiirsanaan doonaa gaaska dabiiciga ah ee ka soo baxa deegaanka kaasoo loo dhisay dhuumo ka soo qaada gaaska oo dhererkeedu u dhan yahay 108 kilomitir taas oo ku quudinaysa warshadaha shidaalka ee ay u baahan tahay inay ku shaqeyso Ethiopia waxay ku tiirsanayd bacriminta dibadda laga keeno caqabadaas oo in badan beeraleydu ku reebtay gaabsi dib u dhac iyo kor u kaca qiimaha laakiin mashruuca Goday waxa uu hirgelinayaa in uu sheekadaasi gabi ahaanba bedelo dhismaha cusub waxa loogu talagalay in lagu daboolo baahida qaranka ee walaxda bacriminta beeraha
iyadoo la filayo inay dibadda u dhoofin doonaan malaayiin tan oo kale. helitaanka bacriminta la awoodi karo ayaa wax weyn ka bedeli karta nolosha dadka beeraleyda ah, wax soo saarka dalagyada, qiimaha cuntada, dakhliga qoyska. Mashruucani waa mid gobolka oo dhan wax weyn ka bedelaya marka uu shaqada bilaabo, waxaana la rajeynayaa in uu dabooli doono dhammaan baahiyaha qaranka Itoobiya ee walaxda uriya, iyada oo malaayiin tan oo kalena loo dhoofin doono dibadda. Mashruucani ma ahan bacriminta beeraha oo keliya, waxa uu shaqo abuur u noqon doonaa kumanaan qof sida shaqaalaha dhismaha, injineerada, darawallada, farsamayaqaanada iyo fursado kale oo tiro badan oo loogu talagalay qoysaska iyo ganacsiyada maxalliga ah. Waxaana lagu soo kordhin doonaa magaalada iyo deegaankaba waddooyin cusub oo saadka qaada iyo rajooyin maalgashi. Magaalada Goday ayaa lagu wadaa inay noqoto mid dhaqaale u abuurta dadka deegaanka Soomaalida oo dhan. Mashruucan wadajirka ah waxaa ka mid ah qorshayaasha lagu ballaarinayo mustaqbalka, taasoo wax soo saarka bacriminta Itoobiya ku riixi doonta safka hore ee suuqyada bacriminta beeraha ee Afrika. Dowladda ayaana sheegtay inaysan dabooleynin oo keliya baahida maanta jirta, balse ay dhisayaan xarun goboleed oo u adeegi doonta qaaradda qarniyo badan oo soo socda. Iyada oo la qorsheeyay in la dhiso muddo 40 bilood gudahood ah, ayaa xarunta bacriminta walaxda uriya ee Goday waxaa lagu wadaa inay dib u qaabeeyo muuqaalka warshadda Itoobiya tobanaanka sano ee soo socda. Laga soo bilaabo gaaska dabiiciga ah ilaa dhul-beereedyada qaranka oo dhan ah, mashruucani waxa uu isku xidhi doonaa kheyraadka hal-abuurka iyo ballanqaadka sugnaanta cuntada, waxaana Goday ka soo ifaya calaamado cusub oo rajo weyn leh, isla markaana u leh dadka deegaanka iyo dhammaanba gobolka oo dhan. dadka deegaankuna waxa ay rajeynayaan in horumarka sii socda uu keeni doono xasilooni, tiknoolajiyadda iyo maalgashi ka dhigaya Goday meelaha ugu badan ee Itoobiya la maalgashado. dhegaystayaal, waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo ay noo soo diyaarisay Khadra Guray, anigoo ah Maxamed Muusana aan idila socodsiinayay. intaan mar dambe kulmi doonana waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.